kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalka caasimada online waa 12 bisha Julaay 2019 wararkan idiin hayno waxa kamid ah dabageed oo aqbalay inuu xilka wareejiyo xubno ka tirsan al-shabaab iyo maxaabiis lagu laayay jirib madaxweyne farmaajo ugaaskiisa kala hadlay arrin xasaasi ah cusub loo shaaciyay inuu socdo qorshe dawladda federaalka uga tanaasuleyso kiiska badda rag ka tirsan al-shabaab oo qorsheynaya inay geystaan dilal oo la qabtay iyo Somaliland oo war cusub ka soo saartay dacwadii BBC-da intaas daawadayaal waxay ahaayeen wararka ugu doorka roon ee caasimada online haddii aad ku cusub tahay janaalka fadlan saar subscribe si aad u hesho warar iyo warbixino mahadsanid haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan aan ka horeeyay sida aan wararka ku helayno waxa xal rasmi ah laga gaaray xiisadii maamul ee ka taagneed magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib dadaallo ay sameeyeen mas'uuliyiin ka socda dawladda federaalka iyo maamulka Hirshabelle ayaa lagu guuleystay in la soo afjaro xiisadaasi khilaafkan ayaa ka dhashay xilka qaadis uu madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ku sameeyay gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed kaas oo ka hor yimid talaabadaasi Dabageed ayaa ka biyadiiday inuu xilka wareejiyo isla markaana uu baneeyo xarunta degmada taas oo sababtay in xiisadu xoogeysato iyo dagaal ka dhacay deegaanka kala bayr ee gobolka Hiiraan wararay hesha caasimada online ayaa ku warramay in gudoomiyaha cusub Cali Maxamed Caraale uu shalay la wareegay xafiisyada degmada arrintan ayaa timid kadib hadallo muddooyinkii dambe ka socda halkaasi sidoo kale waxa xalay kulmay gudoomiye Caraale iyo Dabageed kuwaas oo gacan qaaday kuna dhawaaqay la dhameeyay khilaafkii taagnaa ilaa hadda xilka lama wareegin gudoomiyaha cusub balse dhawaan ayaa la filayaa in la qabto xaflad uu xilka ku wareejinayo gudoomiye Dabageed oo hadda aqbalay xiisadan oo muddo ka taagneed Beledweyne ayaa sababtay inuu ku dhinto taliyihii qaybta booliska gobolka Hiiraan Maxamed Macow oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay duleedka magaaladaasi dhinaca kalena faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeyn saacadii la soo dhaafay ka dhacday degmada Jirib ee gobolka Jubbada Dhexe duqeynta oo dhacday xalay saqdii dhexe ayaa lagu soo waramayaa in la beegsaday 4 goobood ay ku sugnaayeen al-shabaab goobaha la duqeeyay ayaa waxa kamid ah xarunta degmada saldhiga xarun qaraxyada lagu diyaariyo iyo xarun kale oo ay ku sugnaayeen dagaalyahano la sheegay loo diyaariyay inay weeraraan fariismaha ciidamada Jubbaland ee kuwa amisom ku leeyihiin deegaanka Baarsanguun ee gobolka Jubbada Hoose ku dhawaad 20 dagaalyahan ayaa ku dhintay duqeynta la bartilmaameedsaday xarunta degmada sida caasimada online waxa xaqiijiyeen ilaa lagu kalsoon yahay xubnaha la dilay ayaa waxa la sheegay inuu ku jiro sargaalkii maamulayay saldhiga degmada Jirib oo magaciisa lagu soo gaabiyay Xasan Dheere iyo ku-xigeenkiisii oo lagu magacaabi jiray Macalin Cali sidoo kale dadka ku dhintay duqeyntan ayaa waxa kamid ahaa dad u xirnaa al-shabaab kuwaas oo tiradoodu lagu sheegay ilaa 5 qof dhinaca kale waxa jira khasaare ka dhashay weerarada kale ee la beegsaday al-shabaab balse aan la cadeyn karin inta uu leeyahay lama oga heybta diyaaradaha dagaal ee furiya duqeyntaasi hase ahaatee inta badan diyaaradaha Mareykanka ayaa duqeyn ka furiya koonfurta Soomaaliya wali ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ku aadan duqeyntaasi dhanka kale ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay rag hubeysan oo ka tirsan xoogagga al-shabaab war ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa lagu sheegay in xubnahaasi oo gaarayay laba lagu soo qabtay howlgal gaar ah oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka fuliyeen banaanka magaalada Muqdisho nisa ayaa shaacisay in ragga la soo qabtay hubeysanaayeen isla markaana ay damacsanaayeen in dilal qorsheysan ay ka geystaan gudaha caasimadda sidoo kale warka ka soo baxay taliska nisa ayaa lagu sheegay 2 qof oo kale oo ka shaqeynayay shirkado ganacsi la soo qabtay kuwaas oo haatan ay ku socdaan baaritaano dheeraad ah warkan laguma shaacin magacyada xubnaha gacanta lagu soo dhigay iyo halka laga soo qabtay marka laga reebo in howlgalka uu ka dhacay duleedka Muqdisho howlgal ay hay'adaha amnigu ka fuliyeen banaanka Muqdisho waxay gacanta ku soo dhigeen 2 ka tirsanaa al-shabaab iyo hubkooda iyagoo maleegay dilal lagu beegsanayo shacabka waxaana qayb ka ahaa 2 kale oo shaqaale ka ah shirkad ganacsi ayaa lagu yiri qoraalka nisa muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada ammaanka garaan kuwa booliska dawladda Soomaaliya ayaa kordhiyay howlgallada lagu xaqiijinayo amniga degmooyinka gobolka Banaadir markaana madaxweyne Farmaajo ugaaskiisa kala hadlay arrin xasaasi ah
madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan gaar ah xarunta madaxtooyada Soomaaliya kula qaatay ugaaska beesha Mariixaan ugaas Maxamed ugaas Xasan Yarow oo safar ku yimid magaalada Muqdisho. ugaaska ayaa u soo gaaray magaalada Muqdisho martiqaad uu ka helay madaxweynaha Soomaaliya waxaana la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha Jubbaland iyo xaalado kale oo ka jira gobolka Gedo. madaxweynaha ayaa ugaas Yarow u sheegay qorshaha uu ka damacsan yahay doorashada maamulka Jubbaland ee sanadkan 2020 isagoo ka dalbaday in lagu garab istaago rabitaanka dawladda ee qorshaha Jubbaland. ugaaska beesha Mariixaan ayaa madaxweynaha Soomaaliya u sheegay inay ku garab galayaan dhammaan qorshaha uu ka damacsan yahay Jubbaland ee lagu badbaadin karo dadka deegaanada maamulkaasi oo wajahaya dhibaatooyin badan. ugaas Maxamed ugaas Xasan Yarow ayaa sheegay in dadka ku nool gobolka Gedo guud ahaan beesha Mariixaan ee degta Jubbaland ay dhibaatooyin badan ka tabanayaan maamulka Axmed Madoobe isla markaana ay doonayaan inuu isbedel ku dhaco hoggaanka maamulkaasi. sidoo kale madaxweyne Farmaajo iyo ugaaskiisa ayaa ka wada hadlay dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ka geysanayaan gobolka Gedo isla markaana lagu dhibaateynayo dadka uu ka soo jeedo madaxweynaha Soomaaliya. Farmaajo ayaa ugaaskiisa u sheegay inuu sameeyay dadaalo badan oo arintaas wax looga qabanayo balse ay jirto caqabad ay ku suurtagali laadahay xal u helidda arintaas isagoo ka dalbaday inay dulqaataan oo laga warsugo dawladda Soomaaliya. ugaas Yarow waa ninka ugu sareeya saxiixayaasha Jubbaland waxaana aad looga xushmeeyaa guud ahaan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo. haddii ugaaska uu ka soo horjeesto Axmed Madoobe waxaa halis ku jira rabitaanka iyo damaca Axmed Madoobe ee hoggaanka maamulkaasi. dhinaca kale xildhibaan Cabdiqaadir Cusub Cali oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday xog la xiriirta muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Cusuble ayaa sheegay inay maqlayeen warbixino ku aadan in madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayaan inay ka laabtaan dacwadda haatan hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. xildhibaanka ayaa hoosta ka xariiqay in dawlado iyo safaarado ku yaala Muqdisho ay cadaadis ku saarayaan dawladdu inay ka tanaasusho kiiskaasi isla markaana lagu dhameeyo meel banaanka ka ah maxkamadda sidoo hadalka u dhigay. sidoo kale waxa uu intaasi raaciyay in arrintan laga gol leeyahay in lagu burburiyo maamul goboleedka dalka taas oo uu ka digay. hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan dawladda Soomaaliya ay beenisay in wax gorgortan ay ka gali doonto arrinta badda. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin wax kulan ah oo u qorsheysan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu la yeesho dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta. dacwadda hortaala ICJ ayaa la filayaa in dib loo furo bisha Sebtembar ee sanadkan 2019. ugu dambeyntiina xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadashay dacwadda ay muwaadiniinta reer Somaliland ka gudbiyeen laanta afka Soomaaliga ee BBC. wasiirka warfaafinta Somaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa sheegay in idaacadda BBC ay ka baxday dhexdhexaadnimadii ummadda ku hadasha afka Soomaaliga isla markaana ay u gudbiyeen warqad cabasho ah. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu BBC-da ku eedeeyay inay noqotay idaacad laga leeyahay xamar oo hal qoys iska yeeshay taas oo uu ku tilmaamay wax laga xumaado. wasiirka warfaafinta maamulka Somaliland oo warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa ka dhawaajiyay in BBC-da ay horey dacwad ugu gudbiyeen muwaadiniin reer Somaliland ah oo ku nool gudaha dalka Ingiriiska waxaana uu yiri BBC London waxaa la oran jiray idaacaddii geeska Afrika ama adduun weynahaba laga dhageysan jiray oo maanta aad moodo in qoys yeeshay. runtii aad ayaan uga xumahay runtii aad iyo aad baan uga xumahay. idaacaddaasi waa tii ahayd reer Somaliland ay hoteelada meelaha la isugu yimaaday iyo guryaha intaba ka dhageysan jireen. aad baa wararkeeda loo aqoonsanaa loona sugi jiray. maanta meel lagu dhageysanayo arkimaysid sababtoo ah waxay ka baxday dhexdhexaadnimadii. wuxuu intaasi ku daray qoraal dheer oo cabasho ah ayaan ka wasaarad ahaan u qornay waxaana arkaya qoladii reer London muwaadiniintii ku noolaa inay cabasho ka bixiyeen waanu ka ashtakoonaynaa oo ka cabanaynaa waxaanu ka codsanaynaa inay arintayada ah nooga soo jawaabaan tallaabana ay qaadaan haddii kale wixii nala gudboon baan yeelaynaa ayuu yiri wasiirka warfaafinta maamulka Somaliland. guud ahaan daawadayaal wararkii aad kala socoteen caasimadda online xilligan waa naga intaa waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal daawashada warkeena.